السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادا قنت وراركا بيج كان قد دعوانا إسان ويوتيوب كان قنت نبدا فضلا سبسكرايب كسي يا كبعدين وحن سيقو دي قلنا سياسة ده الصومالية يو تاريخي دي مالميه لصور دافي أفر لاتن كساعدات بينو كان لينا وحينو كان لينا وحي كدعاي حالي مقالة مقدشو ورلاليسكا الدقمة ديني لمقالة مقدشو waxaynu kale ka hadlaynaa sanaag oo ka dhacay dagaal aad u culus oo khasaare weyn geystay waxaynu ka hadlaynaa maamulka Jubbaland oo ciidankiisu heegan culus geliyay waxay kale aan ka hadlaynaa maamulka Koonfur Galbeed ciidanka daraawiishtii ee Koonfur Galbeed Abdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garoon oo gaaminayay iyo dib u soo rogaal celiyay waxa kale oo ka hadlaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadallo waaweyn ka soo yeeray maanta duhuradii xiliyada dambe maanta waxaynu kale aan ka hadlaynaa Ethiopia iyo Suudaan arrimahoodii qodobo badan ayaa meesha noo saaran inta ayaa idinka taataawanaya waayaha naga ilaabin mar kale inaad subscribe ana soo dhacday like aad noo saartid gambaleekana furtid si mar walba video ana soo dhigna aad ula socotid waa maasinta inta aad noo samaysay abaal ayaana kaaga heenaa waayahay aynu ka bilowno sanaag ayaa maanta waxa ka dhacay dagaal aad u xoogan 24 saac la soo dhaafay waxay khasaaro weyn ka geysteen laba qabiilood oo sanaag kala daga iyagoon isku qabsaday ceelkii biyaha laga cabaayay sida u taqaanaa Soomaalida dhaqamadeedii ayaa iska badan wax isku dagaalayaan dhul waxa la isku dagaalaa ceel waxa la isku dagaalaya xoolo dagaalkan marka qodobka uu ku bilowday waxay tahay ceel oo la isku qabsaday labada qabaa'il ee hadda isaysta qabiil ka mid inuu sheegtay ceelkaasi uu dhul oo isagu leeyahay xuduudiisa ku yaalo in kale oo qabiilka kalena uu ka diido dhahay ceelkani xuduud markii la wada heshiinayo kumuusan jirin ceelkan waa la isla cabi jiray haatan sidii ayaa la isku cabayaa hadalkii khilaafaadka meesha ayuu ka bilowday iyadoo israasaaseen xoogan uu ka dhacay ku dhawaad waxa ku dhimatay 52 qof waxaana ku jirtay caruur yar yar oo lagu magacaabo saddex caruur Faadima Maxamed Xuseen iyo Jibriil Cali ilka Xuseen saddexda qof iyadoona la sheegayo magaca ilka Casi oo dhameystiran aan wali dadka wararka noo soo diray san magaca saxda aysan ii sheegin anigana aan idin soo gudbin karin magac been ah waayahay dagaalka sanaag ka dhacan sii gadagalno waxa ku dhimatay 53 qof inta idin sheegay saddexda caruur ayaanu ku jirtay inta ku dhimatay dhaabacna waa 72 qof oo da'da inta u dhaxaysa 15 ay ka yar yihiin 7 qof inta kalena waa dadku waaweyn khasaaraha dagaalkan la isku adeegsaday ama hubabka ayaan sii gudagaleynaa waayahay waxa la isku adeegsaday hubka noocii u dambeeyay ee gacantooda ku jiray ayna tahay shilkooyinka laba dhuumoodka ilaa afar dhuumoodka inta la haysto waa la iskala tagay haddaad maqli jirtay qabiil hebel ayaa isdagaalay waxayna isku dagaalayaan qoriga aakaha maanta Soomaaliya way ka gudubtay waxay maraysaa hubkii waaweynaa xuduudaha lagu difaaci jiray sida tusaale Ethiopia iyo Kenya markay isdagaali jireen waxa ka mid ah hubka la isku adeegsan jiray sida hubka ku sheegay hamogaanin oo ah hubka shilkaha ayaa la isku adeegsanaa maanta qabiilada Soomaaliya waxay maraysaa heer la isku adeegsado shilko wixii ku dhimana ama ku dhaawacmaya marka la jecel ayaa la taagan waayahay hubkaas iyo dhishikooyinka baasuukooyinkii iyadoona la sheegayo basanaag arintan in ay ka weyn tahay dagaaladii kale ka dhici jiray Soomaaliya waxa la isku aasayaa miinooyin waxayna og yihiin in qabiiladan ay daris yihiin tuulooyinka la isku maray wadooyinka ayagoo yaqaana waxay dhulka ku aaseen miinooyinka ay la beegsanayaan qabiilka kale ee la dagaalan waayahay sababta miinooyinka loo aasaa maxay tahay ma dawlad ama jabhad ayaa lala dagaalamaya waa maya qodobka sanaag meesha ayaa ugu tagaynaa inta dhimatay iyo dhibaato la isku geysay hubka lagu dagaalamay iyo hadeer miinooyinka la isku aasay waa qodobyadii u dambeeyay wixii kale ka soo baxana xogta kale barnaamijka kale ayaa idinku la wadaagayna waayahay Koonfur Galbeed ayaa war naga soo gaaraya taasi oo lagu sheegay in ciidankii daraawiishta Koonfur Galbeed ee dib ugu soo ragaal celiyeen caasimada ku meel gaarka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo iyagoona u jira 15 kiiloomitir meel Baydhabo u jirtay haatan ay joogaan ciidankii kale magaalada Baydhabo joogay oo aanan bixin gada aadin ayaa shalayto ka baxay magaalada Baydhabo iyagoo gurmadka iyo soo dhaweynba u muujinaya ciidankooda dib ugu soo rogaal celiyay Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo waxayna ku hubaysan yihiin hubab noocyadooda kala duwan inkastoo Jubbaland ay soo hubaysay hubab noocyadooda kala duwan ay ka soo qaateen ilaa haatan aysan soo bandhigin hubyada ay wataan balse waxa la sheegayaa in hubkoodii uu yahay hubabkii aan kama dambeeska ah waxaana loo maleynaa inkastoo Kenya ay Jubbaland ay soo hubaysay hubkii Kenya ay keentay Jubbaland inay Koonfur Galbeed ka soo qaatay maamulka Jubbaland taasi oo rabaan in ay kula dagaalamaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee haatan ku sugan magaalada Baydhabo ciidankaas oo federaalka ay wataan gaadiidka gaashaaman dabaabaadka kaariyaasha uralada kuwooda ugu dambeeyay Turkidu ay siisay ciidanka federaalka ayaa magaalada Baydhabo lagu daadguray iyagoona ugu talagalay in ay kula dagaalamaan
cid walbo ka hor timaada dowladda amarkeedii balse maamulka koonfur galbeed ayaa arrintaasi heegan xoogan ka galay iyagoona hubkoodii iyagana soo adeegsaday diyaar u ah in ay wax burburiyaan ama iyaguna la burburiyo kolay dagaal hadduu dhaca labadaa qodob mid baa dhici jiray in ciidanka la baabiyo ama inay wax baabiyaan haatanna labadaa go'aan ayay qaateen waa yahay ciidanka maxay sameeyeen ee dowladda federaalka magaalada baydhabo ku sugan oo xisbiga g s b iyo dadka la mid baana kor ka ilaalinayaan waa yahay shalay magaalada geesku gees ayay xirteen iyaguna iyo oo dhufeysyadoodii ay ka dhigteen kuwa magaalada ka baxsan u jira 5 kilomitir ay baydhabo banaanka ugu baxeen maadaama 15 kilomitir ay ciidanka daraabiishta u soo jiraan waxayna geysteen gaadiidkooda kuwooda u dambeeyay iyagoona la sheegay in ay qoteen godod ayna ka dhisteen dhufeysyo aynan rabin in hubabka noocyadooda waaweyn lagu soo turo aysan gudaha u soo gelin maadaama iyaguna ay ku hubaysan yihiin hubab waaweyn oo ah kuwa gaadiidka gaashaaman iyo hubab kale oo dowladda turkidu ay siisay ciidanka federaalka Soomaaliya waa yahay xataa meesha ayaa ugu baxayna koonfur galbeed Soomaaliya wali waxaan ku dulmeereysanaynaa gudaha dalka Soomaaliya qisooyinka ka dhacay waa yahay xalay waxa dagaal ka dhacay degmada Daynile ee xaafadda Warlilis taasi oo isku fara saareen dagaal culus oo ka dhex qarxay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa degnaa Warliliska iskugu jireen ciidan qabaa'ila iyo kuwii deegaanka degnaa hubub qaatay iyagoona go'aan ku qaatay in ay ku dhintaan dhulkoodii ama dowladda ay ka difaacdaan dagaalkaasi oo socday 12 saacadood oo bilowday xalay maqribkii ilaa iyo saaka hal saac uu socday taasi oo la iskugu dari karo saacad ay noqon doonto 12 saacadood khasaaraha ka dhashay waa yahay intee ku dhimatay oo ku dhaawacantay waxa ku dhimatay oo ku dhaawacantay dhanka dowladda waxa kaga geeriyootay 12 askari iyadoona khasaare ku soo gaaray laba gaadiidkood dagaalka cabdibilooyinka oo dhishikooda saaran inay dowladdu ay ka gubteen dhaawacan uu noqonayo 14 qof oo ciidanka dowladda dhanka kale oo yani dadka warlaliska xaafadooda difaacanaan waxa ka geeriyootay 3 wiil oo dhalinyaro ah iyo 2 wiil oo yar yar waxbadu xaafadooda ugu tageen ayaa ku geeriyootay dhaawac oo ka gaaran waxaa jirta ilaa 9 qofood oo ka dhaawacantay oo dhanka warlaliska dadka xaafadda difaacayay kadib sawaaroortii markuu waaga bariyay ciidanka dowladda ayaa 3 gurmad degdeg ah xalay dagaal intuu socday dirtay iyadoon wax ka soo qaadi waan saaka balse waxay dirtay gaadiidka gaashaaman oo waaweyn loogu talgalay in lagu burburiyo dhufeysyada noocyadooda u kala duwan ayaa saaka dhufeys xirtay ka bacdina mucaaradka ayaa si toos ah u taageeray dadkii xalay ka dagaalamayay gudahaasi xaafadahaasi ee Warlelis iyagoo ciidan kale u diray iyagoo mucaaradkana si toos ah u tagay meesha oo rabaan in meesha ay ka soo bilowdaan ololadooda dagaalka maadaama 15 May uu soo dhow yahay ay ugu talagaleen inay kaga faa'iideystaan balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa arrintaasi ka digtoonaaday iyagoona soo rogay in gabi ahaanba ay joojiyeen dhismihii ama dudumiskii magaalada muqdisho ay ku wadeen markay ogaadeen in mucaaradka ay meesha soo galeen 15 Mayna qarka ay soo saaran tahay bay go'aan waxay ku qaateen in ay joojiyaan waa amarka madambeys uu ka soo baxay madaxweynaha iyagoona ku sheegay ilaa ay amar dambo dadka qaar ayaa ku wareersan marka ilaa amar dambe maxay tahay micnaha ilaa ay amar dambe wixii soo bax kadib inay dowladda soo noqonayso inay dhulka burburinta ay sii wadi doonto waa laga soo fikiraa micnaha taasi oo u noqon karto in dowladda qorshe cusub ay la imaan doonto oo kan dhaama ama inay sidiiba iskaga daysaba taasi dowladda ayay u gaartaa waa yahay dhanka iyo waxaan sii aadi doonaa Jubbaland axmed madoobe ayaa ciidankiisa sidaa la socotee maalmahani wuxuu geliyey dhufeys aad u weyn iyadoona qabiilada u imaadeen iyo ciidanka new police ee gelinka shanaad Soomaalida Itoobiya ugu imaadeen taasi oo ayagu ay qorshahoodu ahaa in ay Jubbaland ciidankaasi dhufeysyada kala adag ay geliyaan ayna diyaar u yihiin in haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay weerar culus ay ku soo qaado maamulka Jubbaland si adag ay ugu jawaabi doonto taasi ay u noqonayso ciidanka Jubbaland dhiirigelin aad u weyn iyagoona tusayay arinta la yiraahdo dhoolatus military ee maalmahan bay sameynayeen ay fiidiyoyada soo dhigaan baraha bulshada si toos ah page-ka Jubbaland ay leedahay ay arintaasi loo arki karo in ay dowladdu u digayso ay leedahay xasan sheekhow aniga diyaar ayaan ahay hubkeenu wuu diyaarsan yahay ciidankeenu waa diyaaran isku kaayeen goobta dagaalka sida maamulka koonfur galbeed oo kale taasi oo loo arka in ay dowladda Jubbaland bay u caga jugleynayso dowladda federaalka Soomaaliya markii ay la rabay in dowladdu carcar ay noqoto dowladda federaalka ka qabtay yeesan bixin ka soo qabo yeelan dowladda meesha la rabay Jubbaland waxa taagan bad diyaaran u ahay aaway ciidanka federaalka diyaaradihii baa u baahanahay hala ii imaado taasi oo noqon karto in Jubbaland kalsooni weyn ay gadaasheeda jirto ay ku tashanayso ayna tahay kuwa ku meel gaar oo si toos ah isku diyaariyay waayahay waxaan si aadeena Afrikadan oo dariskeena meel fog ma aadeeno idin ma geena asxaabteedii ii kaadiya Yurub idin ma wada waxaan idin wadaa Suudaan ta kaliya Ethiopia waayahay soo raaca intaan waa kaftan yar oo aniga idin la kaftamaayo waayahay waxaan si sameeynaa
suudaan ayaa si toos ah waxay dacwo ugu gudbisay imaaraadka carabta iyo Ethiopia iyagoo weerar ku qaaday saldhig weyn iyo eelboorka Suudaan taasi oo burbur weyn loo geystay dhimasho balse aysan jirin hubkii ay ku dagaalami lahaayeen iyo diyaaradihii ciidanka Suudaan ayaa bartaa lagu burburay waayahay talaabada Suudaan qaad waxa ka mid ah in si toos ah dacwo u gudbisatay Suudaan ay dacweysay imaaraadka Ethiopia balse Ethiopia ay arinta beenaysay ku sheegtay inaysan waxba lug aysan ku leen weerarkaasi banaanka ay ka soo istaagtay arinkii oo meesha taagan oo imaaraadku dacwadu ay ku sii socoto Ethiopia baaris lagu si toos ah Ethiopia dagaalka u soo gashay iyadoo aan gambaneenin ay si bandhigaysay leedahay diyaaradaha kacineen waxaan u kacineynaa Suudaan si aan u burburino saldhigyada Suudaan arintaas oo cabsi la'aan oo Ethiopia intay meel soo istaagtay leedahay waxaan weerarayaa Suudaan si toos ah iyadoo shalay sheegtay inaysan weerarin balse maanta banaanka intay soo istaagtay ayay afka furatay waxay leedahay dagaal ayaan ku qaadayaa Suudaan kama xishoona kamana baqaaye Suudaan istiyaari waa arintii ugu dambayso adduunka laga baqayay oo ah dawlad inay dawlad ku duusho iyadoo sheegayso leh dagaal baan qaadaa diyaar baahay sidii ayayna duqeymihii waxay u geysatay Ethiopia inaba caadiyan taasi oo Ethiopia fursad weyd in Masar ay dagaal gasho Soomaali dagaal gasho Suudaan dagaal gasho maadaama biixireenkii Ethiopia ay chance u tahay in Soomaali Masar iyo Suudaan ay dagaal galaan Ethiopia waxay u tahay faa'iido aad u weyn sidii ayayna ugu faa'iideysanaysaa waayahay gudaha ayaa ku soo noqonayna dalka Soomaaliya 15 May sida la socotaanba mucaaradku waxay balan qaadeen haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud intuu meel soo istaago uusan dhihin 15 wixii ka dambe musharaxaan ahay maalinta 16 subaxii 2 saac ee magaalada Muqdisho iyo arin lala yaabo in ay sameyn doonaan waxayna diyaarsadeen dadkii guryihii laga burburiyay shacabkii Soomaaliyeed inta ka soo horjeeday madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoona sheegay in 15 May ay qaadi doonaan mudaharaadka ugu weynaa haddii la isku day shacabka in la xabadeeyana waxa ku ogeedeen mucaarad waayahay anaa idin sheegaa mise waa ogtaa walaal macaan ma ogtaa ma la socotaa waayahay anaa kuu sheegaa ila soco waxay balan qaadeen in ciidankoodii si toos ah u dagaalgelinayaan haddii shacabka mudaharaadaya la xabadeeyo maadaama ciidanka dowladda 15 May ay tahay dowlad mandate aan haysanin aan xabad ridi karin aan ciidan amri karin aan qofna fasixi karin qofna xiri karin musharax iyo musharax ay kala yihiin dadkaana musharax ayaa wata iyagana waa musharax haddii lagu xadgudbo shacabka hal isfarsaar doon waayahay meesha ayaa ugu baxaynaa qodobyadeena wixii warar ka soo baxana barta ayaa kala soconaysa waxaan kaa codsanayaa haddii videoga inta aad soo gaartay haddii like aad noo saarto waa maasanta haddii aad naga ilowdeen inaad like noo saartid subscribe-kana aad noo saartid gambaleelkana aad furitid wixii commentiga fikirkaagana meesha ku soo qortid waxaan ku leenahay waan ku jecelnaa waan ku taageernaa sidoo kale adna noo jecelo noo taageer salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu